السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء نقابة خالي كسود هذا جنال كي أنت برنامج ذي هوري برنامج كتبنا إذا وذا أصحابي هوري وحاي وبرتين جالنج إنا إذا سوق بيو لكن برنامج كان برنامج أو جالنج كتبه معي لكن ما أنت جالنج موذي وحاوذا مخال وآد وخير بدن قف كستو الضمير له وقدم خنا خاصة والدين واحد دريم كرخفكي والده مرك أصل داونه saa u jeedaan video ka soo gaaray Kismaayo waa nin cunugiisa asoo nool duugay arintan Kismaayo ka dhacday faanoole gaar ahaan nin inax ayaa isdagaalay markay isdagaaleen ninkii sameeyay cunugtii yareed ayuu nolosha ku aasay booliska ayaa xiray cunugtii waa la raadiyay kadib wuxuu soo sheegay ninkii asoo xiran in cunugtii meel uu ku aasay gurigiis ka mid ah saa u jeedaan cunugtii waa la faagay meeshii uu ku aasay uu soo tilmaamay kadib waxaa dhacday in mataqaanaa iyadoo meyd ah oo lasoo saaray saa ujeedaan waa arrin yani weligeed aan ka dhicin Soomaaliya hadday ka dhacdayna ay ugub tahay ninkaas hadda wuu xiran yahay booliska ayaa gacanta ku haya marka sida la sheegana ninka wuxuu isticmaalaa daraagiis u isticmaalaa waa meelo ku yaalo faanoole oo xootiya kaamo ku yaalo waaye marka waa wax xun oo aad iyo aad u xun waaye oo mataqaana aan cambaareynayno mataqaana balka oo diinta islaamka aan ku lahayn wax yani raadiya waa kaasa ujeedaan nugti yareed subxaanallah marka xaquuq insaanka waa cambaareynaya barnaamijkan aragtayna umaleyna waa aabo Soomaaliyeed oo gabadhiisa hal sano ilaa hal sano bar camal jirto oo ayadoo nool aasay wallahi muuqaal aad u murug badan waaye hooyadii ka sakhirtay gabadhaas ilaahay sakhir aakhiraha ugu dhigo aabahana kulay ma ogi shaydaana gala laakiin wax fiican ma sameyn qof oo ilmihiisa aasay qof oo xiskiisa dhanyaama inuu ahayn umaleyna laakiin hadduu caafimaad qabin ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay ha cafiyo nafa goorta taas ilaahay la xisaabtama laakiin waxa xanuun oo aad iyo aad u murug badan qof oo nool la aasay haddana qof weyn ma aha sakhir ilmi yariis wallahi dhacdooyin badan arki jiray laakiin waxa ka murug badan dhacdadan oo maanta aad iyo aad ay murug u tahay kulay qofkii waalid waa dareemi karaa ilmahaaga haddii ka dhintaana wallahi laga samri karin oo niyadaas uu go'do way adag tahay laakiin ilmo nool oo la aasay wax qoran ahayd wax qoran lama baajin karo gabadhaas inaad sidaas ku geeriyooto waa wax markii hore u qorneed ilaahay awlaad ha noo xafido maanta qof kale hadduu dil lahaa waxaa la dhihi lahaa ka xaq daranaa dishay laakiin ilaahay awlaadaada adiga kuguma soo celiyo ilaahay awlaadeena gacanteena kuma sababsado muuqaalka intaasaa kusoo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi